maxaa dhacaya haddii dayaxa la waayo? Ugu horreyn, dayaxa dhulku waa kan ugu weyn dayaxeedka ay qorraxdu midaysay, waana kan koowaad ee ugu iftiinka badan dayaxyada dunida oo dhan. Intaynaan gelin waxa dhacaya haddii dayaxa la waayo, waa inaan horta wax ka ogaanaa dhowr xaqiiqo oo ku saabsan dayaxa. Dayaxu marka dhulka la joogo wuxuu u muuqdaa mid wareegsan oo wareegiisuna uu yahay mid siman, laakiin xaqiiqatan dayaxu ma aha mid wareegsan ee waa sida beedka ama ukunta oo kale, sababtoo ah dayaxa inta muuqata iyo inta qarsoon waa ay isleegyihiin. Dayaxa waxaa ku yaala godad aad u waaweyn, kuwaas oo madowgooda dhulka laga arki karo. Godadka ama deeqsimaha uu dayaxu leeyahay ayaa lagu tilmaamaa dhagxaan waaweyn oo dayaxa ku dhacay inay sameeyeen godadkaasi aadka u waaweyn. Dayaxu ma laha iftiin u khaas ah oo uu soo daayo, ee wuxuu inoo soo celiyaa iftiinka qorraxda. Marka ay qorraxdu dhacdo ama qarsoonto ayaanu iftiinkiisu si toos ah inoogu muuqdaa. Dayaxu waa sida muraayad toosh lagu shiday oo kale, muraayadaasi oo iftiinka si toos ah u soo celinaysa. Dayaxa oo ku socda xawaare aad u dheereeya ayaa waxay ku qaadataa inuu dhulka ku wareego muddo dhan 27 maalmood, 7 saacadood iyo 43 daqiiqo. Jidhka dayaxu wuxuu ka samaysan yahay isku dhisyo kala duwan, kuwaas oo u badan cureyaasha kala ah argon, helium, sodium, potassium, hydrogen iyo radon. Markii ugu horeysay taariikhda bini'aadamka sanadkii 1959 ayaa dayax-gacmeed Ruushka uu leeyahay caga dhigtay dayaxa. Kadib 1968 ayaa qofkii ugu horeeyay cagaha saaray dayaxa, kaas oo ka socday dowladda Mareykanka. Sanadkii 2004 wixii ka dambeeyay ayaa wadamada Japan, Hindiya, Shiinaha iyo Yurub ay saldhigyo ka samaysteen dayaxa. Inkastoo dayaxu aanu lahayn cir sare oo ka difaaca kulka qorraxda, cilmi baadhis la sameeyay waxaa lagu muujiyay in dayaxu leeyahay biyo laga heli karo cidhifyada dayaxa iyo oogada sare dhexdeeda. Haddaba maxaa dhacaya haddii dayaxa hal mar la waayo? Ugu horreyn, haddii dayaxa la waayo, waxaa la waayay iftiin muhiim ah oo ay dadka iyo dugaagguba wax ku arkaan xilliyada mugdiga. Waxaa meesha ka bixi lahaa mawjadaha badda. Dayaxu wuxuu saamayn toos ah ku leeyahay samaysanka mawjadaha badaha, oo haddii dayaxa la waayo waxaa dunida qarqin lahaa biyaha badaha, kuwaasi oo aan dayax la'aantiis halkaasi fadhiyeynin. Waad aragtay oo baduhu waxay iska fadhiyaan dhul siman, iyagoo inta mawjado aad u waaweyni soo kacaan, haddana ay amarka Alle ku noqdaan. Noqoshadaas ay mawjadaha baduhu noqdaan waxa sameeya waa dayaxa. Haddiise dayaxu meesha ka baxo, maba ay noqdeen ee dadka iyo dugaagaba waa la tegi lahaayeen. Waxaa la sheegaa inuu dayaxu saamayn ku leeyahay dhalashada dadka, oo waxaa la yidhi xilliyada ay hooyadu uurka qaadayso dayaxa ayaa saamayn ku leh. Soomaaliduna hore ayayba u tidhi 14 baan dhashiyo dirir arooriyaade, hooyadayna aar soo guday eriday waagii. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay nooleyaasha qaarkood dabargo'i lahaayeen haddii dayaxa la waayo. Haddii dayaxa la waayo, waxaa guud ahaan khalkhali lahaa cimilada adduunka iyo cufisjiidadka dhulka iyo meerayaasha ku xiran. Dabaylaha ayaa meesha ka bixi lahaa, oo dadku waxay u dhiman lahaayeen iftiinka iyo kulaylka qorraxda. Sidoo kale dhulka ayaa isna wareegga joojin lahaa. Haddii uu dhulku wareegga joojiyana, waxaa dhici lahaa muuqaal hore ayaynu kaga soo hadalnay. Haddii dayaxa la waayo, waxaa la rumaysan yahay inay dunidu sii jiri lahayd 6 saac ilaa 8 saacadood dayaxa la'aantiis. Intaas waxa ka dambeeyana dunida oo dhan waa la waayi lahaa. Halkani waa Buga Xasan Cali ee muuqaalka like saar una sii sheer garee saaxiibadaada kale haddii uu ku qanciyay. Mahadsanid.